بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبن السلام يا دمانتي المدريال سلام كبعد waxaan doonayaa caawa ka hadlo feedback-gii naga soo noqday warqadii aan qornay habeen hore iyo dadka ka hadlay ee kala duwan iyo wasaaradda khaarijiga ee dawladdeena oo ka hadashay intaasaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo. siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay oo dadka qaar baa dhibsaday oo sida fiinta uga qayliyay qaar ba haddii alla kuu roon yahay ay jalasnimo ama xaasidnimo ku jirtaayo dee way iskaga abuurantay bini aadamka oo aan de arkayay siday u dhaqmayaan ama dacaayadaha raqiiska ay fidinayaan. qaar baa soo dhoweeyey oo dee dhibaatayna haysato anagu waanu dareemaynay nala dareemayo oo soo dhoweeyey oo aada ula dhacay in dee la helo inta xumaanta wadda ee yar inta wanaagga waddaa 100 goor ka badan, laakiin cid soo abaabusha ayaa dee loo baahnaa. maadaama la helo cid soo kicisa in badanoo dareenkaasi ku jiray ayaa soo dhoweysay oo inta badana dadkeenna inta xumaanta doonaysa iyo inta wanaagga doonaysa inta xumaanta doonaysa ayaa aada u yar, waa fari reer. inta wanaagga doonaysaa badan laakiin way aamusan yihin. dadka qaar baa nagu dacaadeynayay inaanu xisbiyada mucaaradka ah taarget garaynayno. way noo kala soocan yihiin dadku annaga oo dadka iyagii waanu kala naqaana. xisbiga mucaaradka ah ruqsad buu u haystaa inuu dowladda mucaarado, xaq baanu u leeyahay, kaalin baanu inoogu jiraa muhiima ayuu dalka ugu jiraa. haddii dowladda la mucaaradi waayo oo madaxweynaha la mucaaradi waayo oo dhaliisha madaxweynaha iyo xukuumadda la sheegi waayo, dowladda lafteeda ismahadinaysa oo iyadaa u baahan in la dhaliilo. ruqsadda waxaa loo siiya xisbiyada qaranka inay dhaliilaan oo ay toosiyaan, laakiin xayndaabka aanay ka bixin somalilaannimada iyo qarannimada oo waxa qaranka ku taagani uu inaga wada dhexeeyo mucaarad iyo maxaafidba. taasaa saxa. kuwa xuduudka ka gudbay ee calamada kale qaatay ee dhaqaalaha bixinaya ee dadka walaalaha isku dirayeen balaayadu dhex hoolin ee xumaanta ka shaqaynaya ee u banbaxay xumaan aakhirana lagaga jari doono iftiinkana aan lagula xisaabtami doono ee ka waantoobi waayo ee waagii baryaba taagan weeyaan kuwaanu la dagaalamayna. way ka baxeen xilligii kuwaasi la eegan lahaa. ummad badan oo waddankoodii joogto oo nabad ku fadhido oo aan dhibaata haysan bay habeen iyo maalin siday balaayo uga dhex ridi lahaayeen ka shaqaynayaan oy ku foogan yihiin. kuwaas weeyaan kuwaanu dagaalku naga dhexeeya halgankaanu la gelin. annagu malama gelin xisbiya mucaarada. xisbiyadu waa wada kuwayagii ayaanu aragnaa. haddaanu dacaayadeyno iyo haddaanu dhaliilaba xaq baan iyaga laftooda ugu leenay markaanu dhaliilo, laakiin waa xisbiyadaydii waxaan u naqaanaa inay kuwayagiin. dadka waddanka jooga oo dhammina inay ehelkayagiin baan u naqaanaayo aanay shisheeye ahayn. laakiin ehelkaagu markuu xuduudda ka baxo isaga laftiisa u baahan inaad u nasteexayso oo aad ka soo celiso, maadaamuu caqligii ka qulubka ka dhacay oo aanu kala garanayn nabadii nasteexiisa iyo nacabkiisa. waxay gelinayaan dadkii waddanka ku noolaa ee wada dhashay ee wanaagu ka dhexeeyeen dhibaata habeenaa dhex marin colaad bay gelinayaan. colaaddii afka markay dhaafeen iyo xumaantii iyo caydii lafjabka ahayd iyo afxumadii markay dhaafeen ficil bay u bedeleen oo lacagtoodii ay ku bixinayaan inay dagaal ka ridaan waddanka. waxaa ugu aabba ah niman siyaasiyiin sheegta oo aan tira adduun ka yaqaana un dagaal sokeeye oon wax kale aqoon. siyaasad kale oo ummadda lagu kasbado ama waddanka lagu xukumo ama dadka waddan kale lagu kasbado aan garanahayn. tala adduun ka yaqaana istil iyo dagaal iyo sokeeye iyo garxajis iyo kan kale iyo qabaa'il ay magacyo kala bixiyaan oo isku wada midoo walaalo oon meel la ku kala duwanayn oo isku wada xaaladoo cadow qura wada leh ayay kala kaxaynayaan. kuwaasaa dagaalku naga dhexeeya. annaga xisbiye mucaarada iyo qabiil iyo qoys nagama dhexeeyo. ururka iyagu wuxuu ka soo jeedaa gobol kasta iyo degmo kasta oo somalilan ka mid a. waa arki doontaan dad badanoo hadli doona oo qaar ay u qaadan waayi doonaan markay hadlaan. nooc kastoo bulshadu leedahay lagu jirta, degmo kastoo dalku leeyahay bay ka soo kala jeedaan. ma nihin urur qabiile sidooda sida kuwa ay soo hadla maalin walba ee iyagoo oo magac qabiil sheeganaya oo aan qabiilkana ka wakiil ahayn carabka ku ballaadhay magacyada qabiilka. kuwaasoo kale ma nihin. xumaanta ka shaqaynaya ee aan caqligu ku jirin ma nihin kuwa. dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa
qaar ayaga laftooda u qaatay in dowladdu qandaraasna soo siisay ama dee ku sheekeynayeyba oo hunguri ku dhacay hunguri maskax oo sida halkaa waxbaa ku dhaafay oo inuu waxaa ka mid yahay arrintiis waxa isaga ahayd hunguri maskax ayaa ku dhacay oo dadkan dhahabdhahabta wax ku cuna iyo ururada ayuu haayo naf waliba nafteeda ku moodaysa sidoo kale ku moodaysaayo wuxuu u qaatay in lagu hoos tusayoo shaqadii dee wax ku cuni jiray qaar kale wax ku cunaya ay soo baxeen kaana hunguri baa hayay oo arrintiisu ma fogin isaga waa hunguri maskax baa ku dhacay xanuunkaasaa ku dhacay isagu oo dadkaa dee booliga bartay iyo xoolaha xaaraantii dowladda ee isagoo qurbaha jooga loogu soo diray halkaa wixii masaakiinta hargeysa joogay iyo burca iyo boorama laga ururiyey marka inuu waxle arrintiisu isagana meel fog maaha qaar kale baa nagu dacaadeynayay in dowladda qandaraasna soo siisay oo aan xukuumadda ka soconno oo aan lacagna soo siisay oo iyada aan u shaqaynayno sabab xukuumadda aan ugu shaqaynaa ma jirto xukuumaddeenu waa hay-adee leedahay dawliya oo fara badan oo mid waliba wax qaabilsan tahay waa xukuumad isku filan maanta oo muddo 30 sano soo jirtay ku dhawaad oo intelligent leh oo wasaarada leh oo hay-ada dawliya leh oo safaarada leh oo meel walba cid u joogto shaqo ka dayacani ma jirto xukuumaddeena oo anagu aanu qabanayna wax iskaga kaya xirannaa ma jiro dad mutadawiciina oo muwaadiniina oo dalkooda inay wanaag la jecel ayaanu nahay oo waqtigooda in ka mid ah uga jaraya inay wanaag ka shaqeeyaan oo adduunkooda in ka mid ah uga jaraya inay wanaag ka shaqeeyaan oo aakhiradana ay sadaqadu noqoto iyo wax samafal iftiinkana kuwa naga dambeeyeen dhalay iyo kuwa soo dhaleen aan uga tagno wax wanaagsan isu imaatanka iyagoo quri wuxuu ka turjumayaa inaan qabiil isu kaaga keenin ay isu kaaga keentay Soomaalilandnimo wada dhalasho guud iyo ehelnimo aan tusayno siyaasiga xun ee saaqidka ah ee dadka kala kaxaynaya inaan la kala kaxayn karin ee aanu nahay dad walaalo ah oo aan siyaasadi kala kaxayn karin haddii 100 goor kala badiyo sidaasaan ka turjumayna ka laga badiyo iyo ka badiyaaba waa kuwa yagii laakiin nama yeelan karaan hadday hore noo yeelan jireen nama yeelan doonaan waxaanu noqon doonaa qaar ka madax bannaan siyaasadaha iyo xisbiyada oo aan la kala dhex gelin oo aan loo kala sheekayn oo aan la isku dirin taasaa annaga goolka iyagu yahay inaanu siyaasiga saaqidka ah ee qabiilka dabada gelinaya ka saarno dhufayska isaga iyo kuwa xunxune uu wato ee uu ku shaqaysanayo ee aan caqliga badan u dhalin geelkiiska ah intay qurbaha tageen isku dhex kariska ka dhargay ee ku kibray waxa yar la siiyo ee halka ilaahay ku xamdi lahaayeen ee caruurtooda korsan lahaayeen ee qurbaha ay joogaan wax ka noqon lahaayeen dalkii ay ka yimaadeen ee nimcada ku jira ee maanta lagu majeeranayo nimcada iyo barwaaqada iyo baraaraha iyo nabadda doonaya inay ka saaraan oo ka dhigaan sida koonfurta oo kale kuwaasaanu ka hortagaynaa oo aan cid naga hor istaagi kartaa jirin xaq baanu u leenahay inaanu shaqayno cid aanu wakaalad ka qaadanayno ama ruqsad ka qaadanayno ama annaga aanu hoos tagaynaana oon ilaahay hayna ma jirto cid naga hor istaagi karta goolkaanu leenahay iyo waxaanu qabanaynaa ma jirto dowladda hadashay baan ka hadlaya dowladdii iyo wasaaraddii khaarijiga hadashay si fiican bay u hadashay waanu soo dhaweyn waana sidaan u hadli lahaa haddii anigu aan dowladda ahaan lahaa dowladdu waxaa lagu eedeynayay inay iyadu nadiratay oo aan u shaqaynayno beri bay iska dhigtay waana isbaraxday run baanahay waxay ku hadashay oo anagu dad dowlad ku xidhan ama u shaqaynayay maanaan hayn sidaa ay sheegtay baana runtu ahay sabab aanu dowladda ugu shaqaynaana maba jirto haddii alla kuu roon yahay qoladii habeen hore nagu dacaadeynaysa inay dowladduna soo daratay oo qandaraas ka soo qaadanay ayaan arkayaayo ilaa maanta intii wasiirku hadlay haddana nagu dacaadeynaysaa inay dowladda naga hor timi dowladdu kuma xidhnin waxaan uga baahanayna ma jirto inay dowladda idii tahay baanu itiraafsannahay waanu kala naqaanaa xukuumadda iyo qarannimada laba iskaga kaaga qaldan annaga maaha xukuumad kastoo timaada ama tan muuse ha noqoto ama kuwa ka dambeeya ha noqoto mid walba waxaanu ku ilaalinaynaa qarannimada qarankayagaan difaaci doonaa bositif baanu noqonaynaa dalkayagu ilaa intuu ictiraaf helayo waxaanu noqonaynaa muxaafidiin dalkooda ilaashada oo aan xukuumadana ku dhex milmin kuraasina doonanin mutadawacnimo u shaqeeya oo isku xidhma intayada badan ee aamusan
intaasoo labadaas sannadood ee xumaanta la wadayba aamusnayd ayaanu isu keenaynaa oo hayb walba leh iyo deegaan walba iyo degmo walba waa ballan inaanu wanaagga lanagaga daydo oo aan rool moodeel u noqonno in badan oo dhallinyarada laga dambaysa ah ee la kala kaxaynayo ee la kala irdhaynayo ee ninka muraadka lihi kala irdhaynayo nimanka cumaamadaha qaatay ee magacyada la baxay ee boqorrada la baxay ee ugaasyada la baxay ee salaadiinta la baxay nin qura oo qabiilku ka soo jeedo wax taray habeen wallaahi baanu ku jirin nin qura u tari doonaana walle inaanu ku jirin wax alla waxa ay la qaylanayaan waa hunguri lafahooda dhufayska ay gelayaan ay dabada gelinayaan waa reer taasaanu beenaynayna dhufayska reerkee dabada la gelinaya reerahayaga la gelinaya la isku dirayo ee warbaahinta lala taagay la masaarifsanayo dhiigayga la masaarifsanayo ee nin siyaasi sheeganaya iyo nin cumaamad sita oo beenaalo ah oo kadaaba oo salaadana safka hore gelaya wuxuu xidhan yahay iyo wuxuu cunayaana xaaraan yihiin wuxuu raadinaya dambena uu xaaraan yahay iyo booli bartay oo dawaa'ilka sida dhahabdhahabta wax lagaga cuno bartay kaasaanu ka soo horjeednaa inuu dadkayga kala kaxeeyo oo uu jilib u kala kaxeeyo dadkayga waa dad walaalo ah waa dad aan dawladdan waxba u doonan waa dad shaqaysta waa dad adduunka u shaqo taga waa dad baabushara waa dad aan dawladba ku noolaan jirin oo iska xamaasha dawladihii hore tan ka horraysay siyaad barre iyada oo wax walba haysata oo adduunku caawinayo ayaanu ammaan ka weyni waxaan u doonana daayo hantidayadiiba naga boobtay gaadiidkaygiiba boobtay dadkaygiiba laysay ammaan haddaanu berigii ka heli layn oo ganacsigayaga iyo qurbaha iyagaa dadka joogay u shaqatigii noo ammaan gelin lahaayeen mabay dhacdeen oo cidba kuma kacdeen markay naftii noogu timi ee laga kacay waa dawladda ammaanka ka weynay haddaynu maanta ammaan ka helnay waxaa loo daba joogaa dawladda aan la ictiraafin ee aan waxba haysan ee saboolka ah ee aan waxba haysan ee haddana dadaalaysa waxa loo daba socdaa waxa weeyaan waa kibir ilaahay baa laga abaalka daraya ninka dawladii hunguriye kursi hayow dariiq baa loo maraa aynu jeexannay cod baa lagu ridaa shicibkaa la kasbadaa waa la walaaleeyaa siyaasigu inuu dadka walaaleeyo weeyaan oo muuse haa imika madaxweyne ah in adeerkii ka soo kaxaysto uu kaga soo kaxaysto caqli iyo haddii alla kuu ron yahay illee kaba xigoos waa walaalkii uu kaga soo kaxaysto iyo inuu ka wanaagsanaado kan maanta jooga taasaa wax bedeli karta ka jooga inaad ka wanaagsanaato adigu haddaad dhalinayso ayaa loo baahan yahay haddaad laakiin taa waan duminayaa kursigii baan waayo waan duminayaa kaa yeeli mayno annaga ilaashano dalka kula leh kaama yeelayno waxaanu kaaga hor imanaynaa awood badan waxaanu kaa saaraynaa dhufayska qabiilkii ead gashay ee aad maalin walba ku baanto aad ku faanayseed leedahay reer hebel baanuna kaasaanu beenaynaynaa reer hebelkaad ku shaqaysatee beenta abaanu kicinaynaa ee aanad waxba u tirahayn weligaan aanad waxba u tirin waxaan ku soo koobaya hadalkaygii somalilan dadka shicibka ee jooga waxaan leeyahay caqligiinnu ha koro waxay idiin kordhaan dhibaatooyinka aad soo marteen wax ka barta rag kooban oo qabiil walba leh ayaa idinku caqli keefaya oo maskaxdiinna ku ciyaaraya oo kursiga doonaya inay isku fuuraan ayaga oo foormalada isticmaalayaanna tahay mid qalad ah oo aanay ayaguna ku faa'iidanayn innagana ay nagu baabiinayaan waxa dareenka keenay inaannu maanta ka guntanno oo aanu wakhtiga iyaga iyo adduunka iyaga iyo arrintayadaba isu keenno waa waxaanu aragnay oo jira nama dhaqayso jilib in loo fadhiisto loo kala fadhiisto jilib in jabhada loo samaysto jilib in colaad loo abuuro waxna dhaqaya maaha ninka siyaasadi haysii maamulow xisbigaa loo samaystay xisbigaa ka ololeeyo dhufayska reerka ka bax ayaanu leenahay ka dhex ololee xisbigaaga haddaad doonto urur furo waddada la seexday mar laakiin hana soo dhex gelino qabaa'ilka iyaga iyo jilibadayada reeraha iyaga ee ilaa iyo seylac iyo ilaa iyo laasqoro iyo ilaa laas anood jooga waanu kaa dhex saaraynaa dhufays walba ninka halkaa nafi gelisay iyo siyaasad xumadu gelisay ayaanu ka saaraynaa dhufays walba ururka iyaguna mid shaqayn doona oo wanaag ka shaqayn doona oo bositive ka shaqayn doona oo kolba halka loo baahan yahay prioritiga siin doona iyo xaaladda timaadee aanu laga kulanto aanu wax ka qaban doono ayuu noqonayaa mid la isugu wada yimaado oo reer somalilan isugu wada yimaado sheekh iyo shariif ayuu noqon doonaa waxaanu ku dhiqi doonaa oo aanu u jeexi doonaa
qorshe dhow iyo mid fog labadaba waxa aanu haddii alla kuu roon yahay jeexi doonaa dariiq ku cusub dadka oo aan ahayn kanay ku dhaqmayaan qabyaaladda iyo jilibjilibka dadka lagu shaqaysanayaa waa shicibku siyaasiyiin maaha dowlad wax kama soo galaan siyaasad shaqo kuma leh wasiirka la keenay iyo agaasimaha la keenay iyo wasiirada la keenay nimanka maskabiyada haya waxba uma keenaan heerahooday ku eegi qabiil kale maxaa wasiirlaysiin waayayow isaa u fikirayow habeen maad jirin waanaad ku fikirtaa maxaa laygu qaban waayo wax maxaa dariiqan laygu samayn waaye maxaa balligan laygu qodi waaye maxaa dhaamkan laygu qodi waaye waanaad waxaa ku fikirtaa intaad ku fikiraysa maxaa wasiirlaysiin waaye qeyrkaa waad ka hadhaysaa waana lagu kala qaybsanayaa 20 siyaasi ee aan turahayn ee haddii alla ku bilaan naxariista ah ayinbad qoobad ugu xidhnaanaysa annagu ururkaygu noqon maayo ku shakhsiyaad ku dabagala qabiil iyo hayb ama ilaashanayo oo daba socda qaar iskoodu madax bannaan oo aqligooda ku soconaya oo maskaxdooda ku soconaya oo ka xor ah siyaasiga iyo qabyaaladda sheeganaya iyo cimaamadda sita ayaanu noqon doonaan cid dabagelin insha allah biidnillaah waxaan leeyahay dadka wanaagsan ee nabadda jecel ee yunitka jecel ee soomaaliyadnimada jecel ee haddii alla kuri wax u muuqdaan nagu soo biira oo noo kaalaya xooggiinna iyo codkiinna iyo cududiinna ama arrintiinna iyo adduunkiinna baanu u baahannahay inta samaha jecel aad iyo aad baan idin salaamayaa ballankeennu waa horsocod iyo haddii alla kuu roon yahay waxqabad aad baa u salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdullaahi diriye sooraan ilaahay u naxariista wuxuu yidhi hadday run iyo been labadu ay baratimaan ixitimaan socodka way kala badsaan run iyo been labadu ay baratimaan hadday iyo been labadu ay baratimaan بحتمان شعدك وي كلبتش بحتمان شعدك وي كلبتش يا قلبي يا بادي يا نويك الأبحان وسليمان حقي يا بادي يا نويك